بسم الله الرحمن الرحيم داودياش قيمها بدن لو ومركله iyo barnaamijkeeni dhambaal waxaanu kala maqleen muddo kooban iyadoo ay sabab u ahayd mashaaqisha iyo dhibaatada ka dhacaysa magaalada Gaza ama marinka Gaza oo mararka qaar xanuunka qofka muslimka ay ku hayso darteed wax badan ila hoosinaysa mararka qaar waxaan ku sigtay waan gaaray inaan garan waayo mawduucan ka hadlo iyadoo aan u jeedo bar ka mid ah jirkeygii oo la dilayo la qarxinayo la baabiinayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala cadowga isku soo bahaystay ka kor qaado guusha iyo nasrigana ha siiyo waxaanu maanta ka warrami doonaa qofku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood waa ruux iyo jasad ama waa naf iyo jidh ruuxdu waxay ku tacalluqdaa ama la xidhiidhaa oo marka laga warramayo in ruuxdaasi la toosiyana loo sii maraa ama la dhiirigeliyo ama wax loo sheego waa qalbiga marka waxaan oran karnaa qofku wuxuu ka kooban yahay waa qalbi ama ruux iyo jidh qalbiga qofku uu leeyahay ilaahay fi alqur'aan alkariim wuxuu kaga warramay inuu saddex u qaybsamo qalbi xay ah oo nool waa qalbiga qofka mu'minka ah qalbi mariid ah oo buka oo xanuunsanaya oo laga yaabo inuu u dhow yahayba dhimashadii iyo qalbi meeyit ah oo dhintay saddexda qalbi oo dadku ay kala qaybsamaan waxaan idhi qalbiga xay ah ee nool waxa iska leh qofka muslimka ah ee ilaahay rasuulkiisa rumaysan awaamirtiisana qaadanaya qalbiga buka ama xanuunsanayana waxa iska leh dadka munaafiqiinta ah ee kufri calooleedka qaba qalbiga dhintayna waxa leh dadka gaalada ah ama kufaarta ah waxaanu maanta ka warrami doonaa qalbiga nool ee xayiga ah oo aynu ku magacaabi karno qalbiga ilaahay uu ku magacaabay oo ah alqalbu saliim qalbigii bad qabay waa qalbi ka badbaaday oo ka bad qaba xumaan dhammaanteed ilaahay subxaanahu wa ta'ala aayadda 89 fi suurati shu'ara markuu ka soo warramay maalinka qiyaamaha iyo hawlka iyo dhibaatada uu leeyahay iyo dadka badbaadaya ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri isagoo nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam ka xikaayoonaya walaa tukhzuni yawma yub'athun يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أيضاس وأيضا السجالستاتين هذه وحيلاهي كقرم يا وليهي ومال أنو بدباد إلا قفل يميت قلبي بدقبة أما نظيف أما نبض قلي حكى نبض قلي ابن القيم عليه رحمة الله وحوليهي القلب السليم قلبك بدقبة أما نبض قلي وقلبك كبد بادي من الشرك والقل والحق والحسد والشح والكبر وقال لمدي إن قف كلو ولالك يو حسده إن نمعضي وناقا وهيستا يكبع بعضه إن قلبك أما علوشه وحقوق هذا ولالك إنه كب خيله إنه يسكبريه حب الدنيا والرئاسة الدون شعيل يا مدح شعيل يا كرسي شعيل فسلم من كل آفة تبعده عن الله لباتكستا يا آفكستا كفقين السيلاهي قلبي نواك النبض قلي وحكلوك نبض قلي من كل شبهة تعارض خبره شبهة كستا الله يسيرها الله كجهرتك هذا الكإلهي حقا قلبي نواك النبض قلي أو كوبد بادي وحكلوك بد بادي شهوت كستا رويتان كستا وقفكو وكدورته أمرك إلهي سبحانه وتعالى وحوك بد بادي دونيتان عجيدية أما لا ترتمى دونيتان كي رويتان كي مرادك إلهي سبحانه وتعالى وحوك بد بادي قلبي عد كستو كشرتا إلهي سبحانه وتعالى وأوكنا بدكري ابن القيم وحوليه سلامة أما بدقبك قلبك نقل ما يسميت لما يستيران إلا الله لا إنه كبد بعده شن أرمات ما هيك ليهين كو إنه كبد بعده من شرك يناقض التوحيد شركي برية توحيدك إسلام لماذا وهيستو إلا وكبد بعده شركي بربرية أو بابية قلبك سيبنا بدكرين كو وبدعة تخالف السنة بدعة خلاف سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وتاكنا بدقنا قلب قاسي ولي بتقب معها وشهوة تخالف الأمر شهوة يو ربيتان خلافته أمرك إلهي سبحانه وتعالى إلا وقلب قاسي كنبدقنا معها ميت بتقبه وغفلة تناقض الذكر غفلة يمو جنان يدو هنان ماشا كسارت أما بريسة ذكر حسك إلهي سبحانه وتعالى إلا قفك كنبض قرانا قلبي قاسي بتقض ما هيست وهو يناقض التجريد والإخلاص هودو وينقفك الراعو وحي نفتي سيدونسو وحضنا وهذه هو لي هذا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه مركا إلا وقفك كبد بعده أو كنبض قلو هودا يدونيتانكا ماشا كسارس إخلاصكي ينقفكني اسكحر إلهي سبحانه وتعالى قلبي قاسي من بتقض شنتها الريموت أو وقفك لي مادو أي أو كبد بعديه. والله في رسول نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يسوون وحنا جور رمية أو ليه
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. waxaa ku jirta waslad yar jirka oo haddii ay wasladaa yar hagaagto jirka intiisa kale oo dhan hagaagaso, haddii wasladaa yar ay xumaatana jirka intiisa kale oo dhan xumaanaso. Allahu akbar. wasladaas baa rasuulku tilmaamay waxa uu yiri ألا وهي القلب. مياد وليس ويديسي أهمية القلب قوليه وحلقة يابا قرتاغا أما مضحاغا أما مريهاغا يتشركاغا با إناد هانتي بدن هورتو سي أي ددك دحدود أو نقدان ميد قروح بدن أو يندوها قبطان سوسامه دي طبعا ها لكن قلبكاغا إناد تكون بحين بالغا يابا إناد أو قلاتا لغا يابا عي كستا إي أفلقادا كستا أو داوعسا قلبكاغا وحلقة يابا شبهات إي وحيابو حق لغو فروريو oo qofka xaq laga qarinayo ama laga durkanayo inaad ogolaataa laga yaaba. waxa laga yaabaa hadal qabyaaladaysan oo naxli ah oo dadka kala fogeynaya, qof kale ceebtiisa oo laga sheekeeyo, cid kale oo la xanto, waxa soo dhanba waxa laga yaabaa inaad ogolaato qalbigaaga inay si fudud u gaaraan ilaa heer uu qalbigaagu noqdo markastoo xumaan maqasho ama aad xumaan samayso in nuqtatu sawdaa dhibic madow loo saaro ilaa marka hore bayaad waa cadaan yatay mar hadad ka soo noqoydo ka toobad keeni weydo ويسس هرمسة عدان كيبا مدو يسكو بدلية إلا أفولو هذا الكلاه سبحانه وتعالى لها كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا والله ليال وحين أكسونان أن قلبك أهمية دولية هي وحسامين كلية هي تغن هدي قلبك وحقاقو وحسامين تمن كلية هي هدي قلبك وحماضو شركة أوردن حبناها قسدي وديهين وحسامين كله حد بقلبك سدو نقطة. مركا هدا دون سين إندها جو هجاجان لجها جو هجاجان أفكار جو هجاجو قعمها جو هجاجان لجها جو هجاجان حبنها قدرنا يتوصنادان وحلقوا مرمان إن قلبك هجاجس قلبك جو نقطة قلبي نبات قبا أو عافمات قبا أو بد قبا أو لمان لباتوين كي حنونا ذا أردن كبد بادي. بالواحد سوري ستادي ما أنت هذا حنوسته على وشك حنونته ماذا حك حنونه ما يخلو شركة كم يديك حنونته. waxaad markaaba ka fikirtaa inaad dhakhtar raadiso waa shay baadha jawaabta ku soo baxda lagu go'aan qaatay dawada lagu siinayo. maxaa u diiday qalbigaaga inaad shay baadh u dirto inaad hadalka Ilaahay shido ma ku raadoobaya la qalbigaagu buka inaad wacdiyo waana dhageysato xadiiska rasuulka akhrido masaajidka fadhiisato salaad ilaa salaad ku gaadho hadii marka qalbigaagu diido qalbigaagu bukaaye imika dhowdahay daway. calaamadaha lagu yaqaano qalbiga wanaagsan maxay yihiin? waa darsigeena xiga هدي الله ودي له قلاده إنها سنكسو قبقبيننا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وبالله توفيق.